Waxaa israacay wiilal dhalinyaro ah, waxayna aadeen waqooyiga Sacuudiga jaamacad ku taalo si ay isku rajiis gareeyaan. Waxay degeen guryo u dhowaa jaamacaddii. Wiil ka mid ah dhalinyaradii jaamacaddoonka ahaa ayaa magaalada bannaankeeda soo warwareegay si uu magaalada bannaankeeda u soo barto. Markaas buu arkay haweeney ari raacanaysa meel cidlaana fadhiso. Haweeneydaas ayuu aad ula yaabay, qalbigiisana waa ay gashay. Maalinkii dambe ayuu dadkii weydiiyey, wuxuu ku yidhi, haweeneydaas ariga raacanaysa keligeed maxay ahayd? Markaas baa loo sheegay haweeneyda inay tahay haweeney keligeed adduunkan joogto, wax ahalana adduunkan ku lahayn. Haweeneyda ayuu u tegay, waa uu salaamay. Markay salaanta ka qaaday kabacdi ayuu weydiiyey waxa ay jeceshahay. Markaas bay ku tiri, anigu waxaan jeclahay inaan xajiyo oo soo cumraysto, ilaahina ugu arsaaqo, laakiin maxram ma haysto meeshaas i geeyo. Wiilkii yaraa arrintii haweeneydii aad ayuu ula yaabay, sida ay u jeceshahay inay xajiso iyo maxram la'aanta haysato. Qalbigiisa ayaana arrintaa gashay. Wuxuu ku soo laabtay gurigii uu ka deganaa magaalada. Markuu yimid ayuu aad ugu fakeray haweeneydaas inuu wax wanaagsan u sameeyo oo uu guursado si uu maxram ugu noqdo, una geeyo Kacbada iyo meelaha ay jeceshahay. Wiilkii yaraa wuxuu soo xasuustay jumlo aabihiis oo ka maqli jiray oo ahayd, dadka danahooda u gud, ayagana ha ka sugin inay kuu mahadnaqaan, wixii wanaagsan laabudda way kugu soo noqon doonaan adiga. Wiilkii yaraa wuxuu ku fakeray arrintaa inuu sameeyo, haweeneydaasna u geeyo xaramka Maka iyo xaramka Madiina. Wuxuu u tegay subaxii dambe. Markii arrintii uu go'aansaday, nin wadaad oo magaalada aad looga yaqaano arrintii ayuuna u sheegay. Sheekhiina waa uu soo dhaweeyey, wuxuu ku yidhi, haweeneydaas u tag, hadday ku waafaqdo kaa yeesho waa markaas ka bacdi waad geyn kartaa, waxaana u noqonaysaa ninkeeda. Wiilkii yaraa haweeneydii buu u tegay, arrintii ayuuna u sheegay waa inay isku raaceen. Halkii ayuuna meherkoodu ka dhacay. Kabacdi ayuu waday, wuxuuna geeyey xaramka Maka iyo xaramka Madiina, waana soo xajisay. Aad ayaan u qanacday, wayna ku farxday. Markay soo laabteen ayuu u sheegay muhiimadda uu ka lahaa inay dhammaatay, uuna doonayo inuu furo. Waxay tiri, haye furin. Wuxuu yidhi, aniga daraasad inta u imaaday inaan daraasad aan dhamaysto kabacdi aan baxaan rabaa. Waxay tiri, haye daraasadaas ka dhamayso, laakiin hay furin. Markuu daraasadii soo dhamaysto u sheegay inuu magaaladiisa ku laaban doono, uusan dib usoo noqon doonin, uuna doonayo inuu furo. Waxay tiri, iska baxa, hana soo laabanin, laakiin hay furin. Wiilkii yaraa magaaladiisa ayuu ku laabtay. Maalin maalmaha ka mid a meelaha dhalinyarada fadhiyaan, asagoo fadhiyo dhalinyarada asxaabtiisana la kaftamayo, ayaa lagu soo qaaday arrintii haweeneydii. Waxaana lagu yidhi, bal ka waran islaantii waagii aad guursan jirtay, halkay ku dambeysay? Wiilkii yaraa asagoo warba ka haynin ayuu yidhi, wallaahi inay nooshahay inay dhimato kale ma ogi, laakiin naftiisa ayaa markaan ugu sheekaysay inuu magaaladii dib ugu laabto soona ogaada xaalkeeda. Magaaladii markuu kusoo laabtay ayuu yidhi haweeneydii, ka warrama. Waxaa lagu yidhi, haweeneydaas way dhimatay, ma waxaad doonaysay dhaxal ayada ay ka tagtay? Iyadoo lagu jejeesay wiilkii yaraa, orod waa kaasaa gurigeeda tag, soo fiiri wax hadday ka tagtay. Wiilkii yaraa wuxuu soo aaday qolkeedii, wuxuuna ku arkay boorso yar oo dharkeedii ay ku jiraan. Asagoo boorsadii baarbaarayo ayaa waxaa hortiisa kusoo dhacday warqad meesha ku jirtay. Warqaddii ayuu soo bixiyey. Wuxuu is yidhi, warqaddan waxaa laga yaabaa inay kugu qortay wax bal dardaaran ah. Hadduu warqaddii fiiriyaba, dardaaran maahane waa sabarloog dhuleed. Dhulkan wuxuu ku yaallaa magaalada Jidda, meel xeebta u dhow, waana dhul aad qaali u ah. Wiilkii yaraa wuu soo baxay, meesha ayuu yimid, dhulkiina waa uu beeciyey. Wuxuuna ku helay lacag ah 3 malyan oo lacag ah. Wiilkii yaraa aad ayuu u farxay, wuxuuna dhihi jiray mar walba, aabbahayow aad run baad sheegtay. Jumlada aad dhihi jirtay, dadka wanaag u sameey, hana ka sugin inay kugu shukriyaan, iyaga wixii wanaagsan qasab way soo laabanayaan. Jumlada ayuu akhriyey, wuxuu aabihiis uga mahad celiyey. Jumladaas u baray uun mar kasta agtiisa ku sheegi jiray. Wiilkii yaraa aad ayuuna ugu farxay lacagtii. Fadlan qisada haddaa ka heshay like saar, nagu soo xirnaan subscribe dheh. Mahadsanid.